qaar ka tirsan odayada iyo cuqaasha deegaanka Qorligud ayaa maanta shir jaraa'id ay ku qabteen magaalada Burco ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliland inuu fuliyo ballanqaadkiisii ahaa magdhowga baraagihii kalshale ee dhawaan xukuumadda Soomaaliland aastay. Oday Xasan Ismaaciil Cali oo ka mid ahaa dadkii baraagihii kalshale laga aasay ayaa tilmaamay in ilaa maanta aanay xukuumadda Soomaaliland ka haynin magdhowga ay u ballanqaaday ee baraagihii kalshale. aniguna qaranka iyo dawladaba waa ka xishooday haddii aan waxaygiina dawladda barakaysanaysiinayso sida ay u garatay ku qawshayna inaanan ka hor iman sidaa raalli baan ku ahaa alaankana waxaa jirta inaanan wax soo gaadhay oo aan qaatay ayan jirin markii hore wax laysiin waadayna Hargeysaan u soo diray inamadii sidaasu markii inamadii ugu soo noqdeenna waxaan dawladda u sheegaya taxgelinta aynu markii hore aan ogolaaday aan ku soo celiyay mar haddii wixii dawladdu ii magacowday ii sheegtay aan waaday barkadaydii inaan qoto oo anigu kharash dambe ciidda kaga saaraan ku talagalay dawladdu haddii ayan si kale ayan saaka aanan ka hayn sidaa waxa lagu ogaadaa anigu oo aanan hadhow ku ceedoobin haddaan ku dul dhimanayo inaan barkadii qotaa. Cali Jaamac Muuse oo isna ka mid ahaa dadkii baraagahaasi laga aasay ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliland uu digreeto ku aasay baraagahaasi kuna hambalyeynayaan waxaan uu sheegay in madaxweynuhu uu ka dambeysiyay digreetadaasi baaq ahaa in dadkii baraagahaasi laga aasay la siinayo magdhow. aastay barkadaha inaad baaq ka daba jeedisay oranaya hantigii dadka ginada leha waan bixinaya baaqa aad jeedisay ilaa hadda lacagta tiri waxaan siinaya dadkii hantiga laga burburiyay ma hayno mana aan arag isida aanadaan sidii ayay nooga maqan tahay meel walbana waan maray waan raadinay waan way madaxweynaha waxaan ku codsanaynaa hantigayagii inaanu helo. geesta kale waxa iyaguna shirkaasi jaraa'id maanta ka hadlay caaqil Saxardiid Barre Saalax iyo caaqil Faarax Cali waxaanay labadooduba u direen madaxweynaha Soomaaliland baaq ku wajahan magdhowgii baraagahaasi iyagoo tilmaamay inay cuqaal ahaan waajibaadkoodu yahay inay xiriiriyaan xukuumadda iyo beelaha ay cuqaasho yihiin. madaxweynaha uu ugu tahniyeynaa horta go'aanka adag ee uu ka qaatay hantida dadku leeyahay ee uu duugay ee uu danta biday ee taqran biday uu ugu hambalyeynaa markaa laakiin waxaan leenahay de waxa weeyaan go'aankii madaxweynuhu inuu dhameeyo oo uu dadkii hantida lahaa ee xaqqa lahaa uu gaarsiiyo hantidoodii oo uu dhameystiro ayaan ugu baaqay haddana tiibaan ku celinay mudane madaxweyne waxaan korkaaga gaarin waxaan kubkaaga gaarin korkaaga ee dhaamin bale arintaas waad ku amaanan tahay annagoo aan raalli ka ahayn in go'aanka aad fuliso ayaad fuliso waana ku raac yani muqoona yahay. ugu dambeyntii shirkan jaraa'id ay maanta qabteen cuqaasha iyo qaar ka tirsan odayada deegaanka Qorligud ayaa ku soo beegmaya xilli ay xukuumadda Soomaaliland hore ugu dhawaaqday inay magdhowgeedu siinayso dadkii baraagihii kalshale laga aasay. Maxamed Caawad Maxamed, telefishinka caalamiga Somali Channel, Burco.